shan cunto oo halis ah. Waxaynu maanta ka hadlaynaa shanta cunto oo halis ah laakiin la isticmaalo oo la cuno, oo ay dawlado fara badan ama wadamo fara badan oo dunida u ansax ka yahay. Laakiin maadaama aynu nahay dad muslim ah, waxaynu leenahay cuntooyin iyo waxyaabo inaga inoo gaar ah oo ay diinteenu inoo xalaaleysay iyo waxyaabo ay naga xaaraantimaysay. Haddaba cuntooyinkan waxa ku jira ama qaybka cuntooyin lagu ogol yahay oo xalaal ah oo cuni kartid, balse u baahan in aad si taxadir leh u dooratid ama aad u cuntid markaad cunaysid. Haddaba shantan cunto maxay kula tahay inaynu soo gudbino? Muuqaalka like saar, kanaalkana rukumo oo subscribe saar. Waxaynu guda galaynaa shanta cunto ee ugu halista badan laakiin la cuno oo la isticmaalo. Cuntadu dhibaato ma keento, laakiin runtu ma aha in wax kasta la cuni karo ayadoo aan laga taxadiraynin ama si fiiro leh loo dooran karin, ama aan loo diyaarin sida in laga saaro sunta ama qaybaha aan la cuni karin. Tallaabooyinka la'aantoodna cuntada qof kasta oo cuna waa uu ku bukoon karaa. Xaaladuhuna waxay u dhexeeyaan yelaalugo, dawakhaad iyo xataa geeri. Xaaladaha liita ama kuwa sida xun loo kariyo waxay keeni karaan calaamadaha yelaalugada, naqaska oo qofka ku dhega, dawakhaad iyo xataa waa lagu dhiman karaa. Cuntooyinkan shanta ah waa kuwa aad u baahan tahay inaad si gaar ah uga taxadirtid markaad cunaysid. Run ahaantii haddii aanad hubin arrimahan aan soo sheegi doono, waxaa fiican inaad gebi ahaanba iska ilaalisid ama iska daysid. Lambarka shanaad waxaa ku jira miraha loo garanaya nutmeg ee xawaashka laga sameeyo. Xawaashkan caanka waxa uu ka soo baxaa ama laga soo guraa geed ka baxa waddanka Indonesia. Waa maadada ugu muhiimsan gebi ahaan ee loo adeegsado ama lagu daro samaynta buskudyada macmacaanka. Macmacaanka ka soo waxa kale oo loo adeegsadaa xawaashkan in lagu daro baradhada, hilibka, suugada iyo xataa khudaarta cabitaanka qaarkood. Hase yeeshee haddii aad xaddi badan ka cunto waxay keeni kartaa saameyn halis ah, yelaalugo, xanuun, naqaska oo qofka ku dhega iyo xataa suuxdin iyo sidoo kale cudurrada maanka ku dhaca. Kusumowga xawaashkan in lagu dhinto ama loo sumoobo waa dhif, laakiin ma aha wax uu qofku u adkeysan karo. Haddaba maxaad ku dooran kartaa inaad cunto xaddi badan oo xawaashkaas ah, balse waa inaad marka hore maanka ku haysaa xawaashkan waxa qarniyo ka hor loo adeegsan jiray darooga ahaan. Lambarka afraadna waxaa ku jira digirta cas ee loo yaqaana soybeans. Badanaa waxaa la isku waafaqsan yahay inay digirtu tahay cunto nafaqo leh oo caafimaad leh, laakiin waa in ay jiraan noocyo qaar oo haddii aad si hagaagsan loo diyaarin ama loo karin lagu xanuunsan karo. Digirta cas ama soybeans ee dhandanka macaan waxay ku jirtaa qaybtan dhanka togan. Marka laga eego digirta waxaa ku jira nooc dux ah oo duxda ka mid ah oo ay ku jiraan beta-blockchain oo sida maqalkeeda ama qoraalkeeda iyo akhrinteedu ay u adag yihiin, ayuu dheefshiidkeeduna u adag yahay. Haddii aad doonaysid inaad ku laabato ama aad cunto, waa inaad marka hore daawada u diyaar ahaataa calool xanuun iyo matag isbarkan. Warka fiicanse waxa weeye in haddii aad loo kariyo digirta oo inta aan la cunin aad la iskaga kariyo inaad arrinka ka badbaadaysid. Sida digirta oo kale, soybeans waxaa ka buuxa borotiino iyo maadooyinka sunta dila oo ah kuwo dila ah. Nasiib darrase waxaa ku jira sun dabiici ah oo ah dheecaanka trypsin oo lagaga hortagi karo cuntadan oo si fiican loo kariyo oo loo calashado xataa marka la cunayo waa digirtee. Labaduba waxay u baahan yihiin hab lagu fududeeyo oo lagu nadiifiyo oo ah in biyo lagu radiyo ama lagu dhigo ka hor 12 saacadood intaan la cunin ama aan la karinba, si ay markaasi u rado oo kadibna ay bisayl u noqoto hadhow marka la kariyo. Inaad si fiican iskaga calaalisayna waa qaybta ugu muhiimsanba. Lambarka saddexaadna waxaa ku jira dhirta loo yaqaano rhubarb. Waa khudaarta aadka lagu jecel yahay ama aadka loo yaqaan tusaale ahaan cuntada Britain. Macmacaanka Ingiriiska caanka ayaa badankooda lagu daraa cuntadan ee caleenta ah, laakiin waa inaad si gaar ah uga taxadirtaa isticmaalka rhubarb maadaama caleemaha doogga ah ay leeyihiin sun aad u adag, gaar ahaan maadada oxalic acid oo xaddi badan yelaalugo keeno oo hoos u dhigaysa sidoo kale macdanta la bixidda oo sidoo kalena keeni karaa dhagax kelyaha fadhiista. Oxalic acid waxay sidoo kale ku jirtaa
ama jiridda ayay ku jirtaa sidoo kale, laakiin waxay aad uga badan tahay caleemaha sare. Inkastoo aanad xaddi badan ka cuni karin caleentan oo aad ku dhiman karto, waxaa fiican inaad iska ilaalisid. lambarka labaadna waxaa fadhiya farmaajada loo garanayo kaasumaarsu. Cuntadan waxaa halista ka dhigay waxa weeye dirxiga ku jira. Waa suurtagal inay ku soo jiidato, laakiin burcadka loo garanayo Sardinia oo Talyaaniga laga keeno dad badan ayuu soo jiitaa oo ka hela. Kaasumaarsu waxaa lagu daraa cuntadan ugxanta diqsiga oo lagu daray Brixton oo ah maado dhandhan iyo cuf la mid ah burcadka u yeesha. Muddo kadibna dirxigaas yaryar ayaa jilca maadaama dhexda ka qoyan yahay. Kadib marka la cunayo, maadaama uu yahay mid dhexda ka qoyan oo dareere ah, badanaa waxaa la sheegaa inuu u dhandhamo sida suugada loo garanayo gorgonzola oo kale. Kaasumaartu wuxuu leeyahay dhandhan gaar ah oo adag, sababtuna waxa weeye ugxanta diqsiga ee lagu daray. Si aad u dhandhamiso daawada, waa inaad arrimahan diyaar u ahaataa ood xisaabta ku darsataa. Marka koobaad, waa inaad xajin kartaa dirxiga, sababtoo ah wuxuu kor ugu boodboodayaa qiyaastii 15 km marka la cunayo. Talabaadna waxa weeye in badanaa la heli karin kaasumaartu kuma jirto liiska ay cuntooyinka liiska Midowga Yurub ansixiyeen, sidaa awgeedna lama dhoofin karaba. Ta saddexaadna, kaasumaartu badanaa waxaa lagu sheegaa burcadka ka ugu halista badan dunida, maadaama uu caafimaadka halis gelinayo. Arrintani waa run, gaar ahaan haddii dirxiga ku jira uu baktiyo. Haddii uunan baktiyin oo qabowga talaagada ku dhiman ee la geliyay, taasoo macnaheedu yahay inuu baktiyey oo qurmay. Haddii isagoo xumaaday la cuno, waxa uu keeni karaa calool xanuun, matag iyo shuban oo isbarkan. Kaalinta koowaadna waxaa ku jira kalluunka xaydha leh. Kalluunka noocan ah waxa uu aad ugu badan yahay dalka Japan. Kalluunkan loo garanayo pufferfish waa dilaa. Waxaa ku jira tetrodotoxin oo ah walax sun ah oo aad u faafta iyadoo laga baqo. Waxaana laga qabaa inay ka halis badan tahay oo ay ka faafi badan tahay maadada acid. Hase yeeshee, halistaas oo jirta, haddana kalluunkan ayuu yahay cuntooyinka ugu qaalisan wadamada qaar. Japan food ama Japan food waa cuntada ugu wanaagsan ee laga sameeyo kalluunkan, ayaa had iyo jeer qaydhiinka lagu cunaa ama sidoo kalena maraqa ay ku darsadaan oo ay cunaan. Dadka cuntooyinkan kariya waa kuwo tababaran oo dhowr sannadood la siiyo si intaan loo fasixin inay dadka siiyaan kalluunkan. Maxaa yeelay muhiimadda waxa weeye in inta aan dadka la siinin laga saaro xubnaha sunta ah oo ay ku jiraan maskaxda, haragga, indhaha, ilmo-galeenka, beerka iyo mindhicirka. Maadaama uu aad u halis badan yahay oo sintiisu tahay mid si degdeg ah ku faafta, dadka sameeyana looma sii daayo in muddo ah. Waxauna aad ugu badan yahay dalka Japan oo aad looga taageero oo la cuno, loona yaqaano Japan food. Waana cuntooyinka ugu wanaagsan ee dalkaas. Marka laga eego ama la eego saameynta, runtii ma fiicna in qofna biimeeyo waxyaabaha naftiisa. Waxaana habboon inaad iska ilaalisid cuntooyinkan aan soo sheegnay haddii aadan wax aqoon u lahayn gebi ahaantood, maadaama ay u baahan yihiin aqoon iyo sidoo kale xeelad, iyadoo qaarkoodna lagu cunayo siyaabo kala duwan, qaar aad loo calaliyo iyo qaar kale oo sun ay ku jirto. Intaas waxay noogu dhan muuqaalka shanta ah ee ku saabsan cuntooyinka halista ah ee shanta ka kooban, shantan cunto ee kala duwan. Sidaas iyo nooli kulante.